بسم الله الرحمن الرحيم لما أنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسبنا هاي مقالة الأسعانات حرون تقبل كا صال تاريخنا ما أنت ولا بيلا تنك بيشة تضباط لبضة كونية تضبية طبنكا وحن لتشوجا تليها قيبتها بوليسكا قبل كا صال قاشان لده خليف محمود علي سيدو كلا وحن لتشوجا محمد عبدي حسن ويلكن استقدر ويلكن oo noo sheegay in daadiistu hay 12 jir wiilkan waa wiil xaaladiisa aanu baafinayno insha Allah si loo garto ehelkiisa waxa nagala qayb qaadanaya baafintiisa gaashaan la dhexe Khaliif Maxamuud Cali oo aanu leenahay Ilaahay khayr ku abaalmariyo maadaama arrinka samafalka wanaaga uu nagala qayb qaadanayo marka hore taliyaha ayaan ku soo dhaweynayaa si uu faahfaahin uga bixiyo wiilkan yar sidii uu ku yimi laascaanood iyo sida uu gacantiisa ku soo galay iyo macluumaad ku saabsan taliya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore wiilkan oo magaciisa la yiraahdo maxamed cabdi xasan 12 jir ah waa magaca uu isagu noo sheegtay wuxuu ninkani ka soo lumay sida uu noo sheegay magaalada Boosaaso halkaas uu ka soo lugeeyay wuxuu yimi magaalada la yiraahdo laag tuulo la yiraahdo laag oo u jirta ilaa 30 kilomitir Boosaaso halka ciidamada Puntland ee militariga baa halka muddo ku hayay kadibna wuxuu sheegay inuu laascaanood doonayo laascaanood buu soo fakaday muddo markay hayeen gaari bay soo saareen laascaanood baa sida lagu keenay laascaanood markii la keenay laamiga lagu rogayna waxa weeye shacabkii baa qabtay oo waxay keeneen saldhigga bilayska ee koonfurta laascaanood halkaas ayaa laga baafiyay ciidanka bilayska iyo saldhiguba way baafiyeen ilaa ay hadda cid u timaada iyo cid soo sheegata ma aanan arag muddo adigu 4 bilood 5 bilood meelahaas baa lagu hayay saldhigga koonfurta 3 casho ka hor baan ka soo wareejiyay waxaan u soo wareejiyay qaybta bilayska oo hadda aanu ila nool yahay marka waxaan miidiyaha u marinaynaa cid allaale iyo cidii garanaysa iyo cidii aqoonsata inay la soo xiriiraan qaybta bilayska gobolka Sool wiilka yar aan baafinayno waxa weeye wax ehelkiisa wuxuu sheegay in aabihii kulay dhintay waxa ugu wardanbeysay hooyadii iyo ilmo sida uu noo sheegay in ehelkiisa ka noolaayeen markii ugu wardanbeysay uu sheegaya waa ninka aad wax weey wax kala garanaya hooyadii uu magacaabaya aabihii uu magacaabaya wuxuu kala inta noo raaciyay inuu laascaanood ku dhashay asal ahaantiisa markii hore sababta uu laascaanood u soo beegsadana ay tahay inuu laascaanood ku dhashay reerkoodina laascaanood buu ku ogaa laakiin ma hayno ehelkoodii reerkoodii mar hore waa baafinay mar labaad waxaan ku soo celinaynaa inaanu haddana mar labaad baafino cid allaale cidii garanaysa waxaanuna waxa weeye nala jooga oo warbaahintii miidiyihii Cabdimaalig Muuse Coldoon ilaahay khayr hasiyo saxaafadaba waxaan uga mahadinaynaa arrimaha noocan oo kale ee samafalka ay ku jiraan waxa weeye iyaguna way ku mahadsan yihiin annaguna kulli hadeer anaga gacanta ku hayna cid allaale cidii soo baahatana way nagala soo xiriiraysaa arrimihiisa hadii Allah insha Allah aad baan u salaamayaa saxaafadda iyo Cabdimaalig booqashada uu laascaanood ku yimi iyo arrimaha magaalada laascaanood ka wado haday tahay xagga samafalka saaka waxa arkayso xabsiga ka soo baxayo kulli waxaan u maleynayaa dad halka ku xiran buu soo booqday iminkana qaybtii buu joogaa oo kula kulmay aniga iyo ninkan dhalinyarada ah marka kulli arrimo badan oo arrimo bilaadantinimo ah oo noocaas oo jira aad ayuu mahadsan yahay taliyaha qaybta booliska gobolkan aan ku suganahay laascaanood gaashaan la dhexe Khaliif Maxamuud Cali waxaan doonayaa intaanan maxaa ka bixin insha Allah oo aan ka bixin soo gabagabeyn wiilka yar ayaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo bal isaguna sheekadiisa inuu nala wadaago qisadiisa inuu inala wadaago waxa la yiraahdaa magaciisa Maxamed Cabdi Xasan adeero magacaagu soo saama ku celi magacaaga xalwa Maxamed Cabdi Xasan ayo Maxamed Cabdi Xasan inta ma dhaafin bal sheekadaada nala wadaag ana yar baa halkan laga kaxeystay marka laga kaxeystay waxa la geeyay magaalada Boosaaso marka joogo ninkii baa yiri gaari buu watay gaarigi markii watay wuxuu yiri halka ay isu gaariga dhexdiisa anuu gaariga ka dagay meel kale istaagay gaarigina waa halkan oo joogo ayaa soo lugay marka soo lugay waxa mid meesha la dhoo laag militariga meesha jooga ayaa gaari soo saaray laascaanood baa la keenay marka laascaanood la keenay nin oo ganacsada halka joogo ayaa keenay saldhigga dhexe oo koonfurta haddaynu dib ugu noqonno
waa lagu kaxaystay baa tidhi haa waa la kaxaystay markaa lagu kaxaysanayay halkeebaa lagaa kaxaystay dadka ku kaxaystay yay ahaayeen sidee bay ku kaxaysteen ama ma garanayo dadka kaxaystay waxay dhaheen shaqo ma rabtaa haa baa yidhi aniguna waa raacay bes shaqo ma rabtaa ku dhaha haa ereyga shaqo ma rabtaa ku dhaha haa waad ka raacdeen haa marka aduma shaqaad rabtay may isaga iyaga dhaha aniguna markaasaa yidhi haa waa raacay bes waxaa la geeyey magaalada boosaaso waayahe ma nin baa ma gabadh baa maxaa nin buu ahaa oo madow nin madow buu ahaa haa waa gartay mid garanaysa ninkaa may muxuu siduu ekaa ma qaabkiisa muxuu gashanaa dharkee buu gashanaa macaws buu sitay ma shaadh buu sitay ma khamiis buu sitay ma garh buu lahaa ma garh la-aan may garhna ma lehen wuxuu dheegay jaakad iyo surwaal madow iyo cimaamad bes hore mid gu aragtay magaalada may waa gartay waa markii kugu horeysay haa waayahay waxa weeye ninkaasi markuu ku kaxaystay ku yidhi shaqa ma rabtaa masaad ka raacday haa kelmadda shaqa ma rabta markaasaad ka daba gashay haa waaya shaqa ma rabtaa asaad ku raacday xaggee markuu yidhi markaad raacday miyaad lugaysay miyaad daba socotay isaga may gaadhi buu watay gaadhigii waa fuulay gaadhi noocay watay gaadhi nooca waa ma garanay laakiin waxaa gaadhi weyn gaadhi weyn haa gaadhida waa weyn ee alaabta raashinka la saaro noocaasoo kale haa gaadhi noohaa mise gaadhi yaro muxuu ahay taxiya may ma garantuu ahaa may gaadhiyaasha waa weyn gaadhi waa weyn alaabta dadku miyiga u baxa haa koofiyad saaran koofiyad ba saaran haa gaadhiga koofiyad ba saaran waan gartay ninka magaciisa ma xasuustaa may magaciisa ma sheegin nin weyn baa mise nin dhalinyara mise nin aad u yar nin horta wuu weynaa nin weyn baa haa waaye wuu ku kaxaystay gaadhiga mise waday haa isagaa waday waaye wuu dhaqaaqay ha u geeyey meeshaas aad sheegaysa u geeyey haa markaa muxuu ku yidhi halkan igus aniguna gaadhigaa ka degay bis ya gaadhigaa ka degay ha ka degin haa adna waad ka degtay haa halkee baad gashay markaad ka degtay meel kalaa fadhiista oo hodheel yar dhinaciisa ayaa marka wuu ku waayay haa gaadhigii buu raacay buu tegay gaadhigiina saa fiirin gaadhigiina ma arkin buu tegay markaasaad gaadhi kala soo raacday marka intii lagu kaxaystay iyo intaad kusoo noqonaysay laascaanood imisaa udhexeeyey imise maalmood imise bilood walaahi ma ogi ilaa intaa ma xasuustay muddada garan maysid haa isla maalintii miyaad soo noqotay isla maalintii ma soo noqon imise cisho ayaad joogto soo seexanaysay meelaha in yar baa joogay imise habeen baad seexatay meelo aan laascaanood ahayn ma tarin karaan markaa waxaa lahaa halkay ahayd meeshan dadka weydiin waxay dhaheen boosaaso wey waxbaa inoo macluumaad baa inoo soo baxay insha allah su-aalahaas macluumaad doonaya in xaqiiqada yani in gunteeda gaadho insha allah biidnillah marka ma garanaysa intaad seexatay haa waayo waad soo noqotay bal waxa weeye waxaad nooga warantaa haa aynu ehelkii ku noqonno ehelkiinii soo may deganayn laascaanood mise may deganayn way deganaayeen bal ehelkiinii laascaanood bay deganayn nooga waran faahfaahin ka bixi xaggee ku dambeeyeen yaad la joogtay bal mar labaad noogu celi hooyaday baa la joogay aabbahaynuu dhintay walaasha iga weyneedna way dhimatay gabadh baa aniga yareed bes iyo hooyada hooyada magaceedu saddexan hindo sheekh maxamed cali waxay ag degnaayeen beerta aadanarama agteed waayahay cid magaalada ma ka garanaysaa ku garanaysa intaanad ka tegin ay inta ka tegeen ina masbaran maxaad jeclaan lahayd aniga waxaa jeclaan inaa hooyada laga raadiyo wuxuu jeclaan lahaa hooyadii sidii uu u heli lahaa kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan oo 12 jira oo aanu kula kulannay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool fursad waxaana siiyey oo isaguna xog ka bixiyey taliyaha qaybta booliska ee gobolkaasi gaashaanle dhexe khaliif maxamuud cali ilaahay khayr ha ku abaalmariye waxa aanu baafinaynaa wiilkaa yar cidda garanaysa magaciisa ehelkiisa muuqiisa inta dareen yani soo galay inay ilmaha yar garanayaan fadlan ha la soo xidhiidhaan taliyaha ah oo aanu lambarkiisa shaashadda insha allah ku qori doono oo aad iminkaba shaashadda ka dheehanaysaan ha la soo xidhiidhaan taliyaha idinka ilaahay halkaas oo runtii la hubsanayana oo aan si fudud aan ilmaha yar lagu dhiiban ilaa la helo ehelkiisa biidni illaahi alkariim intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaana barnaamijkan baafinta muuqaalka ama muuqaalada qaadaya diiriye jaamac cabdi iyo cabdiqaadir cismaan dubbad waxaad la socodsiinayay anigoo cabdimalik sheekh musocdon asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu